وحلك كوبتا عكتا ee Soomaalida ee dalkani Jarmalka ee dhawaan ku guuleystay horyaalka 16 gobol ee dalkani Jarmalka iyagoo sameynaya u diyaar garow adag kadib markii ay martiqaad rasmi ah ka heleen dalka Finland si ay uga qayb galaan tartanka kooxaha ciyaaraha Yurub ee Somali Week oo lagu qaban doono dalkaasi tababarkan adag ay sameynayeen xulka kubadda cagta ee Darmstadt ayaa waxa kormeer ku tagay gudoomiyaha dalada guud ee dalka Jarmalka Xasan Buraale Safiya Kaynan Safiya Bawa oo ah gabar Soomaaliyeed oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha qaxootiga gaar ahaan haweenka iyo dhalinyarada gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida ee magaalada Darmstadt Kamal Fuad Abdishakuur Ali gudoomiye ku-xigeenka Somali Culture oo dhamaantood halkaasi ka hadlay ayaa dhalinyarada u soo jeediyay hadallo ku taxalluqa dardaaran iyo duco ugu horeyntiina waxa halkaasi ka hadlay Cabdiqani Nuur Ali oo ah gudoomiyaha xulka kooxda kubadda cagta ee Darmstadt ayaa mahadnaq ballaaran u soo jeediyay cid kasta oo gacan ka geysatay TV-ga MMT maanta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay booqashada inay soo booqdeen dhammaan ururada Jarmalka dhisan dalada guud ee ururada Jarmalka iyo ururada Darmstadt anagoo ku sameynayna training magaaladeena Darmstadt oo aan traininga isugu diyaarinayno ka qaybgalka Somali Week Finland kuma santihiin ururada iyo dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee Jarmalka geerida iyo dhiirigelinta aan la garab taagantihiin waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan guul fiican oo la taaban karo aan kala soo laabano Somali Week Finland waxaan gudoomiye u ahay Somali Community Service IFAW oo magaalada Darmstadt ka dhisan ururkana wuxuu mid ka yahay ama xubin ka yahay dalada guud ee Jarmalka oo gudoominaya Engineer Xasan Buraale oo maantana meel fog noogu imaaday iyo maama Safiya dheer noogu imaaday aan ka codsanaya Soomaalida degan Jarmalkana intay taageeraan ee la socdaan ee dhiirigeliyaan dhalinyaradaanayto oo tayada khibrada Ilaahay u siiyay dhinaca banooniga insha Allah Ilaahay haduu yiraahdana waana la socon doontiin Ilaahay haduu yiraahdana waana ka qayb gali doonaa waan raaci doonaa dhalinyaradaasi ilaa Finland marka aad iyo aad u mahadsantiin go'aansanay sidaan dhalinyaradeen aan ku sii horumarin lahayn taas oo isku yimid jaaliyado aad u tiro badan jaaliyadahaas oo mid walba kaalintiisa ka qaadanayo waxa noo suurtagalay laba waxyaabo badan inaan wadankan aan ka suurtagalno si qaasatan dhalinyarada gobolada Jarmalka loo dhigay koobkaas oo ku guuleystay kooxdan championka ah FC Darmstadt iyadina waxaan u suurtagelinaynaa inay nooga qayb gasho koobkan lagu dhigayo Finland si ay u matasho Jarmalka muhiimadan waxay tahay jaaliyada ayga Safiya Kaynan kana socda dalada guud ee Jarmalka ah una qaabilsan xagga arrimaha bulshada iyo sportiga ahna gabar Soomaaliyeed oo xoog u saarta sportiga arrimaha bulshada ahna farcayn ka tirsan dalada guud ee Jarmalka farcaynkaas oo la dhahay Safiya Kaynan haddana maanta waxaan halkaan u imid inaan dhiirigeliyo ciyaartooyda aadaysa Finland oo aan jeclahay inay ciyaar wanaag iyo ay soo bandhigaan iyo ciyaar aad u fiican waxaan ugu faraxsanahay maanta inay nagala soo qayb galeen jaaliyada guud ee Soomaalida wadanka Jarmalka iyo sidaas oo kale jaaliyada kale oo runtii dhiirigelin iyo taageero noogu imaaday marka runtii anaga farxadeena maanta lama soo koobi karo diyaar garowgeena aad u ballaaran yahay waxaan rajaynaynaa insha Allah guul iyo mataqaana sharaf iyo sumcad inaan kala soo laaban doono Finland iyo meesha aan tagayno iyo ciyaaraha Yurub oo dhan runtii aad iyo aadna waxaan ugu faraxsanahay dadka soo sharfay oo nagala soo qayb galay sidaas oo kale waxaan mahad gaar u celinaynaa MMTV oo asagana runtii ah TV waqtigan dambe runtii aad iyo aad u soo caan baxay oo dadku ay aad u jecel yihiin wararkiisa iyo mataqaana shaqada uu bulshada u hayo waa yaalna mudakar MMTV Jarmalka